degmada Cadaado ay maalmihii ugu dambeeyay yeelanayeen ayay maanta ka soo saareen go'aano lagula dagaalamayo isbaarooyinka sharci darrada oo xilliyada qaar ay dhigtaan maleeshiyaad hubeysan kuwaas oo dhibaatooyin ay kala kulmaan bulshada safarka ah. go'aanada ay odayaasha dhaqanku ka soo saareen jidgooyooyinka sharci darrada waxa ka mid ah in qofkii lagu dilo ama waxyeello kale ay soo gaartay aysan jirin cid sheega karta, iyadoo koontaroolada hadda yaal ee ka madax bannaan maamulka loo qabtay muddo kooban in lagu qaado. goobta odayaasha dhaqanku ay ku shaaciyeen go'aamadan waxa joogay wasiirro xildhibaano ka tirsan Galmudug, maamulka degmada Cadaado, saraakiil ciidan iyo qaybaha kale ee bulshada. gudoomiyaha maamulka degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootoole ayaa warbaahintu akhriyay qodobada odayaasha dhaqanku ay ka soo saareen jidgooyooyinka sharci darrada ah. wada hadal dheer iyo falanqeyn dheer iyo dood dheer ka bacdi waxay ku gaareen heshiiska hoos ku qoran oo sida soo socda in aan la dhiga karin isbaaro inta Cadaado iyo aaga ay degaan dadka reer Xaaji Saleymaan in la dhiga karin isbaaro Cadaado iyo inta laga xukumo iyo qaasatan inta ay odayaalkan ka taliyaan inaan aysan jirin cid dhiga karta isbaaro. number 2 in cidii dhigata isbaaro lagu dili karo ciidanka amnigu ay u madax bannaan yihiin iyo dawlad goboleedka Galmudug in ay ku dilaan oo ay ciidanku tilaabo cad ka qaadaan cidii isbaaro dhigata oo lagu arkayo isbaaro u taalo. number 3 cidii isbaaro ayadoo dhigatay lagu tago oo ciidanka ay ugu tagaan oo ay ku dilaan ama ay ku dhaawacaan in aan cid sheega karta oo wax xuquuq ah inuu qofkaasi lahayn in la ogeysiiyo intaan ciidanku ku duulin ka hor cidii isbaaro u taalo inay ka tagto isbaarada. waxa la ogeysiiyay maanta oo taariikhdu ay tahay 22 bishii 6 2012 inta qoraxdaas ka dhiman ayuu xor u yahay qofku inuu ka tago. haddii qoraxdaasi ku dhacdo waa afiisadii waa qabaa shaqadiisa ayaa laga qabsanaya. waxa dawlad goboleedka Galmudug laga codsanayaa in ay markii isbaarooyinkaas ay qaadaan ay amniga sugaan oo aysan dhicin inay dib dambe isbaarooyinkaas u soo laabtaan. nabadoon Axmed Ciise Geedi iyo nabadoon Ciise Gurey oo ka mid ah 13 oday dhaqameed ee saxiixay warqadda lagula dagaalamayo isbaarooyinka sharci darrada ee la dhigtay Cadaadii deegaanada ku teedsan ayaa sheegay in arrintan maamulka ay kala shaqeyn doonaan. waxaan rabnaa isbaaro waxaan ku soo goyn in la mariyo waajibka ay leedahay qofkii fariista waajibka ay la mariyo shariicada islaamka la mariyo waxa la xukumayso lagu qaado ida sheega karin wuxuu dileen loo sheega maayo wuxuu dileen soo nama baahane naga mid maaha maanta laga bilaabo naga mid maaha anaka markay fiiriyeen dhibaatada jirta ee abni darrada ah ee isbaarooyinka ah ee isdilka ah foolxumada ay waxay qaateen inay isbaaro qofkii dhigta saxiixaan sharciga islaamka in lagu fuliyo ay doorteen ayagu shaqadii ay lahaayeen waxay ahayd inay tala go'aan lagu ka soo baxdo go'aankiina way soo gudbiyeen. warkan ka soo baxay odayaasha dhaqanka degmada Cadaado waxa uu imaanayaa xilli mararka qaar maleeshiyaad hubeysan ay dhigtaan isbaarooyin sharci darro waxaana go'aanadan ay fududeyn doonaan in lala dagaalamo jidgooyooyin